الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، maanta waxaa laga yaabaa kelmaddan waxay ku saabsanay qoyska muslimka sida loo dhiso iyo sida wanaajintiisa loogu dadaalo. qoysku waa mujtamaca dhan laftibareedkiisa waayo waxa uu ka asaasmayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo shareecada islaamkana aad ayuu ugu dadaashay inuu qoysku dhisnaado uusa hallaabin uusa burburin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo cadaynayaa labada qof oo nolosha wadaagaya inay aada uga fakaraan inuu gurigaas burburo waxyaalaha ugu farxadda badan oo shaydaanku ugu jecel yahay inay wadaadaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa ibliis markuu soo diro carruurtiisa iyo dadka u shaqaynayo, qof kasta habeenkii markuu u soo laabtay uu sheegayaa waxa uu soo sameeyey iyo qof muslim uu dambi ku dhigay. markaasuu qof kasta wax kasta uu soo sheegay uu leeyahay wax weyn masnaba soo qaban ilaa markuu yimaado shayaadiintii mid ka mida oo yidhaahdo laba qof oo muslima ayaa kala diray. markaasuu leeyahay uu soo dhaweysanayaa uuna leeyahay qofka ugu fiican adiga nicma anta ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u tilmaamay. marka waxaa loo baahan yahay labada qof oo nolosha wadaagaya inay ogaadaan inuu shaydaanka ku farxayo kala togooda oo wax kastoo dhexdooda ka dhaca inay ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis iskaga cafiyaan oo ay ku dadaalaan inuu gurigaas muslimka u dhisnaado oo ay shaydaankana iyo carageliyaan uusa farxad gelinin. waxyaalaha kaloo muhiimka waxa waaye qof kastoo muslima waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa inuu qaato. ilaahay wuxuu leeyahay wa aslixuu daata baynikum, dhexdiina waxa ka dhaca hagaajiya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na amrayo. marka waxaa loo baahan yahay ninka iyo gabadhaba waxaa loo baahan yahay mar kastoo wax dhexdooda ka dhacaan inay hagaajiyaan oo wanaajiyaan oo isa qof kasta uu ka shaqaynin inuu asaga uu mar kasta guusha qaato oo xataa asoo marmar laga qalbayna inuu tanaasulo sidoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u raaligeliyo amarkiisa u qaato. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa alaa ukhbirukum ayuu leeyahay rasuulka miyaad mii sheegin biafdali min darajati asalaati والصيام والصدقة وحكى درجة بدن صومك يا صلاة يا صدقة. مركز الصحابة يقولون بلى يا رسول الله ما شاء رسولك إلهي. مركز رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إصلاح ذات البين لا وقف وحكى بحر كبعين إني بحر والله قالوا لا يناجي لا ولا قول تسعي أي وحي كخير برنتهي صلاة والصوم والصدقة وانا نافله markii laga hadlaayo soon iyo salaad iyo sadaqo oo naafila markii laga hadlaayo. xadiidkaasna waa xadiid saxiix. rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu amrayaa waxyaalaha qoysku ku wanaagsanaado waxa ka mid ah qofku inuu ku dadaalo mucaasharada zawjadiisa oo dhaqanku la dhaqmaayo dhaqan wanaagsan oo kula dhaqmo. rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamayaa خيركم خيركم بأهل وحن يكون خير بدن أي رسول كليه للكريك يسأل خير كبدن. مركز رسول الله وأنا خيركم بأهل أنا جرى الله يملك خير بدن هيك يسأل خير كبدن. مركز واحد لو ده زوجي هو أنت أسوق كلها زوجنا الواسطة وكله فهم شقائق الرجال. إلهي سبحانه وتعالى يدعو كتر لا معه وعاشرهن بالمعروف معاملة ونادسا يبقى ونادسا كل ما الله سبحانه وتعالى إليه. آيات كالإلهي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مركا وحلو بها يسجل ونادسا على قيسه مركا ونادسا إنه لبغى بنعبا إلا المادان. حديث كما رسول صلى الله عليه وسلم وقل في المعنى ألا واستوصوا بالنساء خيرا بنوك رسولك يقول لي خير الدردارنا فإنهن عوام عندكم لأن قبلها سؤال الله يا رسولك وقبل محبوسات وأتينا كحبسا وأتينا أنجي ومالك لم يجاء ذكري رسولك يقول معنى محبوسة يقول مركز رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لي وناجية وبقى وناكسا كلا بقنا. إلهي سبحانه وتعالى يقول المعنى
الرجال قوامون على النساء قوامنا اسمع علمنا وحي كنت المعنى وأن قفك البريال كأولي لنا معها أن كنت صلوها أو إذا أتينا أو وحيالة حمانا وقسما يقوامنا كمانا أو الله يقول يناجيو بريالو كل ذلك تاس أيا وحي تلمان إساء آيادا إله سبحانه وتعالى ورحمه أمره حديث كما رسولك صلى الله عليه وسلم قلت المعنى لا يفرق المؤمن المؤمنة قف مؤمنة جبر مؤمنة أقول بصلاة وحي سميسي إن كره منها خلق بلعب سميسي ويقول هذا كل بصلاة رضي منها آخر بلعب كلا ونالسان ولاده أي غالك ذنب مركا مجرى قف بلعب يسوع كنتها قف بلعب يسوع في عنها إلى مجرى لكن وحل الله هي مدة حلنا إن اللي يعني مدة ونالسان إن اللي يتبع من الله والله الصبر مدة مسكوبة يانا إن مدة حلنا بدنا إله سبحانه وتعالى ولا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وحلني يا غير إلهي ليا وحنا كهتين وإبستين إلهي بحدي سنة ومن خير بدن وفرع بدن marka wax kasto qofka dhibsado ma aha inuu markiiba ka bogo laakiin waxa loo raadinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bariyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaagga waafajiyo waxa kale oo ayadana muhiim ah gabadha muslimadda waxa loo baahan yahay mar kastaba inay ku daraasho inay raali geliso ninkeeda rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxa la yidhi dumarkee u khayr badan markaas uu yiri allati tuqiru zawjaha wa mudda abada zawjeeda إذا أمر مركو أمره وتصره إذا نظر مركو في اليوم فرحت جلسة وتحفظه موطنا في نفسها نفتها وماله وحوله حديث كلا رسولك صلى الله عليه وسلم الدواء يوم ويدين أداك زوج أنت جبر غير نهمياتها يؤمن مكاسو يتري نعم مكاسو رسولك كيف أنت له سأبدأ منك هذا مكاسو يتري ما آله أي ما يقصر في حقه حقي سأب كما جابي أيتري إلا ما عجزت عنه وإن يوم ويانا انت كلا كما جابي مكاسو رسولك صلى الله عليه وسلم يقول فانظر وحفي رساء أين أنت منه ماشا كجوت بأسجع فيري فهو جنتك ومالك السجع أيانا جنتكم كجنينا يوم وصبقوا روانا جنة الدشي هذا رالك أيها هذا رالك أهنا أساء السبب روانا نارت الدشي حديث كاسم حديث صحيح مركز جلب مسلمين بأن الله هي مركز تبعين زوج كذا أباه وحن معصر إلهي سبحانه وتعالى وإلهي وسرالك أهل موياني انت كلا وحن الله هي إن زوج كذا أباه وحكى الله المهمة لما وقفوا نرسل ورايا إن يسكت إلى عليهم برك بحضور الفتنة اللي ابن حجر ورسولك صلى الله عليه وسلم وقتل معنا ليس منا من خبب امرأة على زوجها قف كبري من دبر كبري من كان ونجا مغملها الرسول صلى الله عليه وسلم وتمام marka dadkaas isku diraayo labada qof oo nolosha walaalaha oo xaaska isku diraayo oo qodhay qaadanaya inay kala tagaan dadkaas rasuulka sallallahu alayhi wa sallam arintaas ay ku tilmaamay waxana loo baahan labada qof inay iska ilaaliyaan dadka isku dirdiraayo oo wax kasta oo loo kala sheego in yaqiinsadaan oo baaraan ayaga naftooda ku baaraan haddii wax loo tanaasuli karo oo fudud u yahayna markaas iska tanaasulaan haddii kalena markaas waddo kale oo wanaagsan u raadiyaan waxa kale ayadana muhiim ah qofka muslimka uu ku dadaalo oo dunyaha hagaajinaya waxa ka mid ah inay labada qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaliyo oo salaada ku dadaalaan oo soonka ku dadaalaan oo Ilaahay cabsidiisa ku dadaalaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamaya arrintaas guriga inuu ku wanaagsanaanayo carruurtana ku wanaagsanaanayaan oo barakadaas carruurtana ku wanaagsanaanayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa kana abuuhuma salihan suuratul kahf markuu qisadu ka hadlayo aabayaashooda ayaa dad wanaagsan ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay saas ayay ilmuhu waxay ku heleen barakadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay waxa kale oo ay guriga ku wanaagsanaadaan ducada inuu ugu dhawaado oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka muslimka Ilaahay uu bariyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala carruurta u wanaajiyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala zawjada u wanaajiyo
أيضا إن الله سبحانه وتعالى عروض وناجي إن الله كبره زوج خيرنا الله سبحانه وتعالى وناجي كاسو كمدها من منهج وضر إقامة أنبياء الله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى يقول شيئا يا نبي إبراهيم عليه السلام سوء إله بريا وأمي وجنبني إله وحمد إلى لسان وبني يعرور كيدا أن نعبد الأصنام آيات كلام يقول لي رب اجعلني وحيدا بكتا مقيم الصلاة من صلاة الأولى ومن ذريتي يعرور كيدا ربنا وتقبل دعاء إله سبحانه وتعالى آيات كلام يقول لي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الإمام القرطبي رحمه الله صلى يفسر يقول ليس شيء نجرى أقر لعين المؤمن وقف مسلم كأنها كل يكسر من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون لله إما أركو عرضتي سيئة زوجته سيئة أبيع آية أي وقف مسلم كأنها كل يكسر يحقون خالصا marka waxa loo baahan yahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga baryo inuu ilmaha iyo caruurta iyo zawjaadka inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u wanaajiyo waxa kale oo ayadana muhiim ah qofka muslimka ah inuu caruurta uusan inkaarin ayaa muhiim u yahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu naga reebay inuu qofka muslimka ah caruurtiisa inkaarin قال الإمام ابن مبارك رحمه الله أيها وحاول من كشيئا يعرضيسا إنه كعاصيه markaasuu wuxuu yidhi adacawta calayhi miyaa inkaartay oo miyaa ilaahay u barisay markaasuu wuxuu yidhi nacam waa inkaaray markaasuu wuxuu yidhi idhab iga tag faqad afsadtahu adaa fashaadiyey qofkaas iyo cunugaas iga tag ayuu leanna markaa inkaartay ilaahay inkaartaada waa aqbalaya markaasaa waxaa laga yaabaa inuu sii xumaado laakiin hadaa u ducaysid ilaahay ducadaada waa aqbalaya oo waxaa laga yaabaa inuu wanaagsanaado waxa kale ayadana muhiim ah oo guriga ku hagaagaya qofka muslimka ah inuu gurigiisa mar kasta quraanka ku akhriyo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamaya in albayta guriga la yattasi'u ala ahlihi guriga yaasi'u noqonaya dadka degan wa taxdiruhu almalaa'ika malaa'ikana way soo xaadiraysaa wa tahdiruhu shayaatiintana way ka haajiraysaa way ka tegaysaa wa yakthuru khayrkiisana wuu badanaya أن يقرأ فيه القرآن ومكي القرآن كان يؤخر وإن البيت جنجا ليضيق على أهله عرير كل رأى يدك بدًا وتحضره الملائكة ملائكة ليتها جريسا وتحضره الشياطين كان يسوق جريسا ويقل خيره خير كيسنه ومرانا أن لا يقرأ فيه القرآن ويقول عن القرآن كان يؤخر هذا القرآن يؤخر وحاصل ذاتا يقول المسلم كل عام هذا القرآن كأخيرا وحاصل فائدة ورسولك صلى الله عليه وسلم الشهيد أي وقف مسلم كريم حق وهنايا إلهي سبحانه وتعالى يريها نورنا الأجيب إلهي سبحانه وتعالى قدرنا عروضة وزوجات كذا قل الله سبحانه وتعالى نور إصلاحه هذا وصلي وسلم على رحمة المهدى كما أمركم الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وذل الكفر والكافرين اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.